Japan boqol iyo konton sano ka hor waxay ka mid ahayd feudal systemkii beeraley waxba haysanin bal aan qisaydin soo naqliyo oo siharo nin la yiraahdo Dr. Tawfiq Al-Wa'i ayaa xikaayada soo naqliya inkastoo nadka aan baadhaan hore u helin magaca kan laakiin waa nin say sheegayaan Samura family-ga Samura family-gu waa middle class-ka qabaa'ilka kamida Japan waa qabaa'ilkii xaashiyada boqortooyada ku dhawaan jirtay ciidamada ahaan jiray Japan ilaa 150 sanadood buu cilaaqaad la lahaa wadankan Jarmalka la yiraahdo inta badanna saaxiibay hayeen yar oo dagaalkii labaad buu xagga Ingiriiska Japan ku yara raaceen waxoogaa dagaalkii koowaad baan leeyahay waxoogaa dagaalka koowaad iyo gagaarkiisii ayay Japanisku xagga Ingiriiska mareen laakiin inta kale Jarmalkay saaxiib ahaan jireen dagaalkii u dambeeyayna la wada jabiyay waxay isku dayday Japan arday bay diratay la rabo inay wax ku soo bartaan wadankaasi ninkan magacan leba kamid ahaa baa la yiraahdaa Hamburg University buu tagay waxbarasho bilaabay waa group arday oo la soo diray waxaana loo soo diray aqoonta Germany in la soo raro Germany-na waa meelihii galbeedka hogaaminayay technology-giisa sideedaba technology-gu meelaha ugu badan oo ku faafay wadanka Jarmal baa ahaan jiray wuxuu leeyahay ardayga kani markaan master qaatay oo auto mechanics buu dhigtaa الميكانيكا markaan theory-yadii iyo books-kii iyo wixii ayay macmal banagay waayeen buu yiri theory uma loo dhigaa nadariyaad jaamacad iyo book iyo drawing iyo wax xunbana lagu wadaa buu yiri meel farsamaba waan arki waayay anna waxa iga go'an buu leeyahay inaan wadankii horumariyo wadankana buuga ku horumari maayo si aan yeelo waa inuu tala kala keenaa maalintii dambe ayaa waxaan arkay buu meel macrada oo injiino muharrak injiinaya talyaaniga lagu iibinayo 2 horsepower dabeetana injiin baan baabayacayo mushaharkayga oo dhan buu la qiimo noqday buu yiri hal injiina baan mushaharkiisa siista habadii injiinka ahayd anigu ku faraxsan oo qaadi karayla ayaan gurigayga la tagay buu yiri waxaan idhi buu kani waa modelka haddaan ku guulaysto waxa kalena waan ku guulaysan doonaa injiinkii buu miiska saartay halkan rafkaan kala soo daadagay buu wixii buug lagu akhriyo jiray iyo wixii sawiro injiinka warrabay iyo wixii oo dhan waxaan ku tala galay buu yiri injiinkaasi inaan furfuro bool kasta iyo bir kasta meel dhigo bir kasta sawiro sideeda u dhigo kala wada daadiyo kadibna aan dib isugu wada celin karo dabeetana aan mar kale ka shaqaysiin karo si xirfadi ku jirto xabad walba u sawiray mid walba meel u dhigay waday 3 maalmood bay ugu qaadatay wuu yiri inaan kala wada furfuro oo dabeetana dib u xidhxidho oo dabeetana kiciyo injiinkii waxaan ku guulaystay buu yiri inuu kaco aad baan u farxay buu yiri marka kaahinkii watay yani dhaqanka iyo hidaayo waxoodan in la ilaaliyo inagu intaynu diraawn bay lumaane kuwan la diray waxay iyagu Japan ku dartay kaahin xataa dhaqanka iyo diinta iyo waxaan u ilaaliyo la socda kaahinkii baan u yimi buu yiri waxaan idhi buu yiri maanta waa soo guulaystay maxaad samayso waxaan idhi buu yiri waxaan soo furfuray hal injiina baan intaan midmid u kala tuuray oo meelaha dhigay ayaan dib u farsameeyay dabeetana dib baan u xidho waan ka shaqaysiiyay shaqaadu fiican baad qabatay buu yiri laakiin waan ku tijaabinayaa injiin mu'attal oo kharibmay baan ku keenayaa buu yiri ka haddaad ka shaqaysiiso markaas aynu wada hadlaynaa oo baxay buu yiri injiin kale uu keenay oo qariban furfurkaas buu yiri waxa xun soo saar oo dabeetana samee injiinkii baan sawiray waa kala wada dhigdhigay midba meel baan dhigay 3 birood oo cunmay oo dhibaato gaadhay baan ka soo dhaxelay buu yiri 3 birood baan dubbe iyo mubaradka fortune inta tagay birta marna la qaboojiyo marna la tumo ayaan soo tuntay buu yiri 3 birood baan soo tuntay oo kuwiyo kala ayaan soo sameeyay buu yiri dabeetana dib baan u xidhxidhay isna waan ka shaqaysiyay tanna 10 cashay ugu qaadatay buu yiri maalmaha uu shaqaynay wuxuu leeyahay hal mara baan wax cunaa in yarna waan seexdaa inta kalena baan kuma dul fadhiyaa 10 maalmood bay tanna igu qaadatay buu yiri inaan dhameeyo
iyana waan dhameeyey dabeetana waxaan idhi buu yidhi waxa la yidhi buu yidhi master degree baad qaadatay waxaad gashaa doctorah professorkayga sii wad buu yidhi may doctorkaa dooni maayo baan idhi buu yidhi jabaan baa isugaysa jabaan si aan wax uga noqdo injiinkan hadda gartay sida la isugu xidhxidhay dee birtiisa waa inaan samayn karaa birtiisa saan u samayn karana waa inaan warshadaha birta dhalaaliya tagaa kuwaana wax layskuma barayo shaqaale ka noqo xamaal baan bilaabay buu yidhi ka shaqeeya warshadahan birta warshadahan lagu dhalaaliyo ironka aluminiumka biraha warshadahan dhalaaliya ayuu xamaalnimo ka bilaabayo inuu cumaalintan dhuxusha ku gurtiyo waxaan inuu noqdo ka shaqeeyo 8 sannadood buu waxaa waday oo uu baranayay sida birta loo dhalaaliyo dhagaxa inta la soo qodo sida loo kala dhalaalin karo bir loo kadib buu noqday Nagasaki buu tagay boqorka maqlay ninkan iyo arrimuhu wado 5,000 pound buu soo diray buu boqorkii Japan oo leeyahay waxaad u baahantay qalab soo siiso qalabkii warshad kaamil baan soo siistay buu yiri waxaan ku qaadabaan waay mushaharkaygii baan haddana uga dhigay buu yiri nooli dabeetana qalabkiisii buu la yimi Japan markaan imi baa la yidhi buu boqorka raba inuu ku soo dhaweeyo ku yimaada may boqorka arki maayo buu anigu aan qalab sidin muharrakaat anigu sida mooyaane iima cuntanta wali in boqor soo dhaweeyo warshadiisii yarayd buu rakibtay fortune-kiisii iyo birihiisii buu dhalaaliyay wixiisii buu waday muddo kadib 9 sannadood markuu rafanayay waqti ku dhadhow say sheegayaan ayuu wuxuu soo saaray injiinadii koowaad muddo markuu rafanayo ma 9 injiin buu soo saaray isagoo 9 injiin wata buu boqorkiisii la kulmay waxay dhahdaan waa gaalkani waa ninkii bilaabay ama raggii tiirarka u taagay industrialka maanta ay leedahay maxay Japan ay leedahay Japan reer galbeedinta ay yimaadeen uguma deeq cilmiga loo wada reer miyiga iyo beerahan ka kaalayo technology-ga barta cid kuma oran laakiin iyaga u dhididay maxaan tan uga jeedaa qofka han kale waxa uu rabo uu xaqiijin karaa qofku hadduu han leeyahay ولذلك بقى إلهي قرآن كوحين ليه سيقول نبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل بقى نبي قالوا والصبر يعني إنه لا شو عقبات بيلا ذي مركب كل أي هم بعض يالنيسا معناه ما هو واحد قبطة بريح أنت هذا غاضون إنه يسوب ويسوي حاجة يسمعها 1000 مشكلة بقى كاهر إيمانية أنت أسوأ عرقلات بقى إيمانيسا لكن Soomaali hore maxay oran jireen wixii maxay ragna u kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan yani hatta ninka reer biyiga Soomaaliyeed wuxuu rumaysanaa ninka waxa la yiraahdo hadduu rabbigii ka hashado inaan mustaxiil jirin saas waan rumaysanaa yani inuu xaqiijin karo waxa uu doonayo inuu han leeyo waxan uu guntaday ba muhiima إلهي ساسد ردد نبي سيوحكو لي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل والصبر سيدي والصبرين أولو العزم من الرسل وحقرانكو إنا بريا إنا ميلا هوسي شوغين امحالين يدي واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من المتقين ما هذا وواجعلنا للمتقين إله كوى إله كعب سدى إمام نوغدك hormoodka naga dhig weeyaan dadaasha kuwa haysta ilaahu naga dhigine ahlu taqwa hormoodkiisa ilaahu kuwa naga dhig ilaahi wuxuu leeyahay fastabiqul khayraat fastabiqu baratama bala leeyahay baratama maxay khayraadka ilaahi wuxuu leeyahay saabiqu saari'u yusari'una fil khayraat وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون إلهي وحين لي ديري وحقه هرتك نبينا عليه الصلاة والسلام وحين المامية إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى ور إلهي حتى هداوه ويدي سنة إلهي محي ويدي استباليدي فردوس الأعلى إلهو جنة يقال يقولها ورنه إلهو جنة تيدا سري يقاده يعني النبي محمد هانكو بريي صحابتيس وحلي حتى هدا جنة إلهي ويديسانيسو جنة ميله هذا سكها دلبان محاد كدلبتا إلهي فردوس الأعلى ولذلك النبي وحلي عليه الصلاة والسلام
أعجز الناس من عجز عن الدعاء tamartu markay ku awood sheegato rabbi baa la kaashada dadka waxa uu liita buu nabigu yiri ka maxay waxa uu caajisaysan oo liita ka ducadana ka caajisay waxaynu u baahanay marka nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay inna allaha yuhibbu macaaliya al-umuur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha ilaahay wuxuu jecel yahay arinta kuweeda sareeya iyo kuweeda maamuuska leh wuxuu necab yahay kuweeda liitee hooseeya asxaabu danaa inaynu noqono maaha اليد العليا خير من اليد السفلى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز نبي حلي عليه الصلاة والسلام مؤمن كحوقا قوي الإيمان قوي العقيدة قوي العمل قوي مؤمن كحوقا أياك خير بدن بالليلو إلى هيك تسلقك شعيل بدنيه مؤمن كضعيف كهلا بدو أنا خير بكتير مردي مؤمنين احرص على ما ينفعك وحق أنفعك الددال بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز إلهي كالميسو وأبدكها عاجسه نبي حليه إن قامت الساعة وبيد أحدكم فصيلة وقيامها دور عادي وقت مراد يرجعنتك وهي هدات كجارتين كرتك كجارتي والنبي يقول إيه هارون وقيامي بابا دعيا يا عنيا